Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka salaamay walaalayga dhammaan meel kastoo joogtaan. Waxaa idinku salaamay mar labaad salaanta muslimka qaaliga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan oo banaanka ah waxaa lagu karinayaa hilib. Waxoogaay muraad baa ka jiro. Marka la socdo wanaagsan asxaabey dhagaxaantaas iyo waa kuwii guryaha lagu dhisayay qoryahan shidanayna waa kaasaa yaa ma fahanteen halkaasaan joognaa marka haddii ilaahay yiraaha wixii kaleetana waan isla arkaynaa sidii howsha loo dhameeyo ama se loo maamulo. Meeshaan hadda aan taaganahay jiko waaye, jikada waa dhis bay ka samaysan tahay laakiin korkeedan waa wada cagaar oo wada saaq ayaa saaran. Saaq ma taqaaniin? Waa fahanteen oo malayaa halkaas gurigii waxaan joognaa walaalkii marka halkaas uga yeero quraan yaraan ma lahano qur'aana lagu qabaayo ciyaalka qur'aan la saaraya. Halkaasna waa barkadii biyaha laga cabaayay yaa halkan baraaga biyaha lagu shubtaayo qofkii aan biyaha u soconin oo guriga yani biyo u lahayn booyad u yeertaayo maasha allah. Hadda waa ka hilibkii baa la walaaqaya gabdhaha karinaya maasha allah. Marka xilligu soo diyaar garoobaya arkaynaa haddii ilaahay yiraaha la socod wanaagsan. Haguban baa qaaliyay quruxdii haweenkaay hagubanine iska jir marka dhib ma laha waa iskala kaftamayaa gabadhaas oo hilibka walaaqaysay waa kaasaa wax yara u dhima hilibkii weli ma bislaanin ma fahanteen. Halkaas waa geedka la harsanayay hadda hilibkii waa bislaaday oo saxamankii la soo diyaariyo wiilkaas hooyaan u ahayo oo walaashii macaan baa dhashayo yaa halkaas hadda hilibkii baa la kala gurayaa haddii ilaahay yiraaha. marka dee video aad u dheer yahay dee codka ma wada saari karee asxaabey intaan ka gaaraan saarayaa haddii ilaahay yiraahdo. kala saxamankii baa meesha lagu qaahay marka hilibkii la karsare hilibka waa geel waa kaasaa kurisaa ku dhex jira maaragtaan iyo barbarooni iyo lagu daray quraaca laga rabaa. Rooti baa lagu cuni doonaa rootiga dheer cali hilibka geey baa la leeyahay cali video ka cabsanaa anigana waan ku qasbayaa ma fahanteen oo ka jijiysan ma garateen. warka saasaa jirto waa kaas asxaabey waxaan leeyahay dadka hilibkaan cunay oon soconaan doona waxaan leeyahay caafimaadka cuna. haddana shaahiba cadeyska ah dhaka jabi la dhahay ayaan karsanaynaa. halkan aan joogno waa Mandheera. hadduu video in soo gaara haddii subscribe iyo like share hala dhaho ma garateen. shaaha baa la kariyey kirligaas weyn ayaa lagu shubayaa waa kaasaa marka Mandheera waa dalkii hooyo oo kale ma ahan waaba dalkii hooyo ma fahanteen. Soomaaliya iyo Mandheera isku mid waayo waxay ku kala duwan yihiin Maleh iyo Gaarisa iyo Mandheera iyo waa dhulkeeni Soomaaliya. anaga digsi baan shaah ku karsanaa ma fahanteen laakiin kirligaas lagu shubayaa yaa dadka yani kirli ku karsada waa jira anaga digsi weyn lagu karina markaasaa kirli weyn lagu shubaa
waa la tirtiray rootigaa lasoo diyaariyey mafahanteen boos rooti halkaas noo yaala caafimaadka cuna qur-aankana allaha aqbalan leeyahay aan ku wada cunno waa la cuni mar hore videoga lasoo daahayaa anigaa marka fiirinayo rootiga soo yani soo u yaala rooti leh waa laakiin meeshii oo alaabta loo waday maba gaari kariyo waxaa waaye wiilasha gageynaya gabdhaha waxay iska joogaan jikada iyo banaankaas iyo meesha cunto lagu cunayo dee waa wiilasha yani wiilasha geynaya cuntada waa xilli quraac ah goor dee quraacda yani adiga muraadka waxaa laga dhigay assalaamu calaykum waraxmatullahi